أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. نشيخ بري قسم وغشيكي حيري من عالمة أو أرضيد أهل جعلين حرتها أهل جعلين كذا حرت المجتمع ونبى أهل جعلها أخلاق ونكسن بإلى هيسي تقوى بإلى هيسي علم بإلى هيسي الله كعبس بإلى هيسي لكن إنك وحي إلى هيك وها جاجية إسلام كل وضبيعات أذن ومركو أنت ومقالة سعودنا كبيه سينو قاتل الله ما أقوله مسألة كنت كان ينو قاتل الله ما أقوله أقل كمركو قالنا إسلام تكون شقيسته dari buu karin biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhanbu cuntada siisin markaas ay oranaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmay bay oran hadalka keeni maayo uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekayo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa leeyay markii dambe waxay ku tiri anu hadee toolawaan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaamay ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhii xaabo guraayo oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen in kaarqabtadana waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guray dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyay biyihii buu dhaamiyay ilaahu aniga islaantaas ilaahu islaantaay ummadda kale ilaali buu libaax socdo un baa u yimid oo hor fadhiista leeyahay sheekhay xaabadii qorihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kale uu ka soo saaray magaaladii wala soo maray sheekhu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tegi nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xaggeed ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyahay xaabada kuu keeni doona dee markaa bay tii sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu yihi dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman dee markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga